subax wanaagsan daawadayaal waxaan nagala socotaan page-ka Shabeelle TV waxaan idinkala soo hadlaynaa meel aan ka fogeyn taalada daljirka Daahsoon oo xalay ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo kale oo daacad u ah midowga musharaxiinta xaaladda saakay aad ayay u degan tahay waxana goobta gacanta ku haya ciidanka sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan gorgor runtii ciidanku waxay diidayaan in laga agdhawaado aaga taalada daljirka Daahsoon oo sidoo kale uu ka dhow yahay hotelka ay degan yihiin midowga musharaxiinta hotel Maida X Naasab laba xaaladdu runtii saak way degan tahay halkan aan kala soo hadlayo waa taaganahay waa wadadii ka imaanaysay isgooska Jubba oo runtii aadaysay hotelka Maida oo ay degan musharaxiinta sidoo kalena ay ka agdhowdahay taalada daljirka Daahsoon xaaladda saakay runtii aad ay u degan tahay xaalku wasadan idin muuqda waxana wali la qiyaasi karin xaaladda rasmiga ah ee halkan jirta laakiin waxaa goobta gacanta ku haya ciidanka sida tababaran isla hore ugu sheegay loo yaqaan gorgor runtii dabaabada waaweyn oo ay isticmaalaan ciidanka ayaa lagu arkayaa dad badan ayaa halkan ku sugan oo runtii iyagu jeclaan lahaa goobahooda shaqada aadan iyo kuwa kale oo u soo baxay in xaaladda ay ogaadaan runtii halkan oo aan ku suganahay ciidanku waxay diidayaan in xitaa lug ay isticmaalaan dadka si loo xaqiijiyo ammaanka guud taalada daljirka Daahsoon runtii xalay dagaal xoog leh uu ka dhacay saasaanta dagaalka ayaa laga dareemayaa goobtan aan kala soo hadlayo runtii xaaladdu weli ma aha mid caadi ah laakiin ciidanka waxay ku dadaalayaan inay xaqiijiyaan ammaanka runtii xalay saqdii dhexe waxaa barakacay dad badan oo guryahoodii runtii ay ahaayeen jeengado iyo guryo kale oo runtii xabadaha ay sahlan tahay inay ka soo baxaan si waxyeeladu u yaraato ayay xalay qaarkood barakaceen qaar kalena saakay ayay guryahooda isaga baxeen inkastoo saako xaaladdu degan tahay haddana warar aan helin waxay sheegayaan in runtii xaalka hadda uu yahay mid degan runtii waxaa halkan ku sugan dadweyne aad u fara badan oo iyagu qiimeynaya xaaladda rasmiga ah ee halkan ka jirta si u ogaadaan dadka waxay qabeen cabsi hore maadaama xalay dagaal u dhacayna runtii dadku waxay muujinayaan walaac kale xaaladda hadda waxay tahay mid degan goobta waxaa gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ka amar qaata midowga musharaxiinta oo xalay hadlay waxay sheegeen in iyagu weerar lagu soo qaaday halka dawladda federaalka Soomaaliyana war ka soo baxay lagu sheegay in ciidamo ay weerareen baraha control laga ilaaliyo ammaanka guud ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho runtii xaalka saakay oo aan idin la hadlayo oo degan yahay inkastoo xalay dad badan ay walwal ku seexdeen haddana waxaa soo baxay ififaalo waxyabihii ay ka digayeen dadka oo haddii banbaxan uu dhaco horseedi karta colaad iyo dagaal runtii hor leh waxaana idin soo tabin doonaa wararka ku aadan xaaladda rasmiga ee taalada daljirka Daahsoon oo ay adag tahay in loo dhawaado runtii waxaan isku dayi doonaa mar kasta oo aan helno in xogta saxda ah ee halkan ka jira daawadayaasheena aan u soo gudbino waliba mid ku saleysan xaqiiqda marka qaar waxay sheegayaan in uu dhacay dagaalka markuu dhacay kadib khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha dagaalkaas ka dhashay dawladdu faahfaahin guud kama aysan bixin khasaaraha dagaalkan ka dhashay inkastoo ay sheegtay in baraha control ciidanka dawladda weerar lagu soo qaaday ilaa iyo hadda saakay oo aan la hadlayno xaaladdu waxay tahay sidan idin muuqata dadkan waa dadka degan degmada Boondheer ee gobolka Banaadir iyo qaar kale oo ka kaliimid degmooyinka kale oo iyagu rabay in halkan ay ka gudbaan si ay u gaaraan degmada Xamarweyn oo inta badan gaadiidka BLka laga raaco xaaladdu runtii hadda way degan tahay waxaana dadku ay mar walba rabaan inay ogaadaan xogta rasmiga ah ee xaaladda halkan ka jirta saasaanta dagaalka ayaa muuqanaysa runtii halkan waxaa lagu xiraystaa ujeedaan biro
iyo dhagxaan runtii xaalka weli ma ahan mid si sax ah loo saadaalin karo laakiin dadku waxay u muuqdaan kuwa raba inay ogaadaan xogta rasmiga ee dagaalkan runtii waxaan idin tusi doonaa oo aan tegi doonaa goobaha raadadka dagaalku ay ka muuqdaan oo qaarkood rasaas ay ku taalo dhismahan ku sii socdo waxaa ku yaala dhowr xabadood oo muujinaya in dagaalka dhacay laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan raadadkii dagaalka ayaa muuqanaya sida u jeedaan derbigan waxaa ka muuqanaya rasaas fara badan oo ku dhacday oo muujinaysa saameyntii dagaalkan uu xalay reebay dadku waxay isticmaalayaan xaafadaha wadadan waa wadii suuq flesh ka soo bixisay degmada Boondheere runtii dad badan ayaa ku soo lugeynaya oo loo diiday in laamiga ay isticmaalaan dadka qaar ayaa sheegaya ku shakeysanaya in nabadgelyadu muhiim ay tahay runtii dagaalkuna Soomaalida wax badan ay ka soo daashay saadarteed dadku waxay codsanayaan qaarkood in laga shaqeeyo mar walba nabadda iyo xasiloonida oo runtii qasaaraha ka dhashay saameyntiisa hadda ay muuqato maadaama xalay lagu kor dagaalamay dad maskiin ah oo guryahooda jiifay oo runtii hurdada loo diiday laakiin xaaladda rasmiga ah ee daljirka Dahsoon ayaa isku dayi doonaa inaan tagno si aan wax badan uga ogaano haddii ay jiraan qasaaro runtii waxaan isku dayi doonaa xogta ku saabsan iyadana daawadayaasha ku xiran telefishinka Shabeelle inaan u soo gudbino haddii Allah wada leh uu raali ka noqdo midowga musharaxiinta ayaa horay waxay ku celceliyeen dhowr mar inay ka go'an tahay inay qabtaan banaanbaxan oo runtii ay ku sheegayeen in ay uga soo horjeedaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin dawladda ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in mar walba ay ku dadaali doonto xaqiijinta ammaanka laakiin dagaalkii xalay ayay sheegtay inay bilaabeen kooxaha mucaaradka musharaxiinta askarta daacad u ah oo baraha control ciidamada ammaanka ay ka ilaaliyaan weerar ay ku soo qaadeen taasna ay dhalisay dagaalkii xalay ka dhacay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir halkan waxaa ku yaala ganacsiyo badan oo saakay furnaan lahaa ama shaqayn lahaa laakiin hadda way xiran yihiin gaadiidka ciidanka ayaa goobta weli gudaha u sii galaya runtii xaaladdu saakay way degan tahay inkastoo xalay dadka halkan ku nool mar qor ay maqleen daryanka rasaas culus iyo mid fududba intaba oo dagaalka la isku adeegsaday halkan iyaduna waa kaalin shidaal oo ku taala meel aan ka fogeyn daljirka Dahsoon iyaduna saakay weli albaabada looma furin oo ay xiran tahay sida u jeedaan runtii saameynta dagaalkii xalay uu reebayna waxa ay ka muuqataa goobaha ganacsiga halkan ku yaala oo saakay shaqayn lahaa gabi ahaantoodna dadku u xireen cabsi ay qabaan awgeed waxaa meel fog iga muuqanaya askar ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran gorgor oo runtii soo gudbinaya mid ka mid ah aabayaasha Soomaaliyeed oo waayeel ah isku dayayaan inay wadada soo gudbiyaan inkastoo dadka loo diiday haddana dadka qaar ayay u dhimrinayaan ciidanka si ugu sahlanaato inay soo gudbaan halkan oo xaaladeedu hadda si rasmi ah loo qiyaasi karin runtii halkan weli waxaa soo gaaraya dad aad u badan oo raba inay ogaadaan xaaladda taalada daljirka Dahsoon oo xalay la sheegay in dagaal uu ka bilowday oo sababay saameyntan hadda idin muuqata waaga ayaa soo dilaacay oo soo bariyay
waa xilligii ay kala tegi jireen dadka shaqooyinkooda inkastoo maalin jimca ay tahay oo inta badan dadku ay shaqooyinkooda caadiga ah ay ka nastaan haddana waxaa jiray ganacsiyo iyo isku socod sidaas u badnayn oo shaqayn jiray oo runtii saakana aan ka muuqan gabi ahaanba degmada Boondheere iyo aaga ka agdhow hotel Maa'ida oo ay degan yihiin midowga musharaxiinta. waxaan isku dayi doonaa inaan la hadalno qaar ka mid ah dadka halkan ku sugan degmada Boondheere oo xalay runtii dareemka rasaasta maqlay xaaladdu sida ay tahay waxaan isku dayi doonaa qaarkood inaan la hadalno haddii ay inoo suuro gasho mar walba dareenka dadka ayaan jecelnahay inaan soo gudbino iyo sida ay u arkaan runtii banaanbaxan oo weli iyadoo la gaarin saameyntiisa xalay laga dareemay magaalada Muqdisho. waxaan dhexgeli doonaa dad sheekeysanaya oo xaaladii dagaalkii iyo isku socodka xirnaashiisa ka sheekeysanaya qaarkood waa ganacsato kalluunka iibiya oo saakay runtii aan shaqo tagin si xaaladda qoyskooda iyo tan halka ay qoyskooda degan yihiin uga warqabaan. أسكت حسبنا باب أفكار خير من كيان بعد خير من إله نويت قح مرمنا نقح صدق سنة بلدي عن أرضنا نقول عربية يمنا حورنا هذا صدق سنة كل مرة يمينا حاجة عندنا كل ما يساعد صدق قح نوتوينا قح مرمنا باب أنا كم عبسي بلا شغلة لا لا عبسينا قحرا وقال قح يرمنا لا يجوز ذكر الإله حقيقي إله يجوز ذكر نيو المال يجوز ذكر تمام أنا بحاجة هذا اللي مجا بذاك يا واحد دافع غير ولا شيء daawadayaasheena waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee nala socdaan annagana waxaan jecelnahay markasto xog saxan u soo gudbino si sheergareeya muuqaalka si xaaladda halkan dad badan oo daneynaya ay u ogaadaan. markan waxaa soo dhawaaday sida hadaata aan ii sheegayay mid ka mid ah abayaasha Soomaaliyeed oo ciidanku ay soo dhaweynayeen runtii in dadka halkaas ay gaaraan aad u adkayd laakiin waa ay soo dhaweeyeen haddana ciidamada ayaa sii noqonaya sida u jeedaan xaaladda saaka weli waa ay degan tahay ciidamaduna waxay xaqiijinayaan ammaanka si aan qalalaase iyo dagaal mar kale u dhicin xaaladuna waxay tahay hadda saakay oo waagu weli uu soo bariyeeyo mid degan oo runtii sidan idin muuqata ah. aabahaas idin muuqda ayay ciidamadu keeneen runtii xaaladdu waa degan tahay weli ciidamada iyo gaadiidkooda ay muuqanaya indhuhu waxay qabanayaan weli ciidamo xaqiijinaya ammaanka oo runtii aan laga dhawaan karin oo dadka u diidaya inay goobta tagaan laakiin mar walba oo aan fursad u helno aan tagno goobta daawadayaasheena waxaan u soo gudbin doonaa xog ku saabsan halkaas iyo muuqaal oo si live ah aan u soo geli doono si aad u heshaan xog rasmiga ah halka la xiriirta xaaladda waa sidan idin muuqata jawigu wuu degan yahay laakiin dadku halkan ku nool waxay muujinayaan weli cabsi mar kale in dagaal halkan uu ka dhaco waxaana qaarkood sida arkayseen oo sheekeysanayay sheegayeen in qax iyo barakaac iyo dhibaato mar kale shacabka Soomaaliyeed aysan u noqonin weli afka hore ee meel u dhow taalada daljirka Dahsoon ayaan idin kala soo hadlaynaa sida hore idin kugu sheegay daawadayaasha dib nagala soo qabsaday hadii aan iyaguna u sheegno wadadan waa wadada ka imaada isgooska Jubba runtii soo aada hotel Maa'ida iyo sidoo kale
taalada daljirka daahsoon meeshii looga leexanayay oo iyaduna isla goobtan ah in halkan la dhaafo ayaa aad u adag sida ujeedaan waxaan ka soo dhaxbaxay dadkii halkan ayaa ah meesha ugu dambeysa ee qof uu iman karo si xaaladdu uu qiimeeyo runtii dadka waa kuwaas halkaas tuuran waa aroor hore oo waaga mar dhow ayuu bariyay haddana dadka ayaa raba inay ogaadaan xaaladii xalay kadib sida jawigu uu yahay iyo in mar kale dagaal uu dhaco inay suuragal tahay ayay hubinayaan qaarkood dadaas si hoose ula hadlay waxay sheegayeen in isaga barakici doonaan degmada Boondheere qaar kale xalay ayay sii barakiceen saa hore idinku sheegnay laakiin jawigu wuxuu yahay hadda degan oo ciidamada gorgor ayaa xaqiijinaya ammaanka oo la wareegay babtan oo xalay ay ku sugnaayeen ciidamada cadwa midowga musharaxiinta oo runtii gariid cabdilayaal iyo dhar military ku labisnaa laakiin saakay xaalku waa uu kala dalayahay dagaal xalay dhac kadib suura gashay in ciidanka oo heegan ku jiray ay la wareegaan halkan kadib markii dawladdu ay sheegtay in ciidanka ka amar qaata musharaxiinta ee daacad u ah ee weerar ku qaadeen baraha control ee magaalada laga ilaaliyo waxaa ka mid ah meelaha laga soo sheegay rasaasta xalay in laga maqlay isgooska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho daawadayaasheena mar walba waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan iyaguna noogu xiran yihiin waxaan ka codsanaynaa in muuqaalka aad sii shargareysaan si saaxiibo badan uu u gaaro iyaguna daneynaya inay ogaadaan xaaladda rasmiga ah ee halkan ka jirta anigu waa Cabdinaasir Socdaal waxaan ahay wariye ka tirsan bahda Shabeelle saakay waxa halkan u soo gaaray oo runtii si aan xogteeda kugu soo gudbiyay xalayna waxaan ku sugnaa isla degmada Boondheere oo uu dagaalku ka dhacay runtii xogahana mar walba waxaan jecel lahay daawadayaasha ku xiran TV-ga Shabeelle inaan u soo gudbino waxaa isku day doonaa inaan gaaro goobta ay ku sugan yihiin ciidamada gaar ahaan kuwa gorgor oo ammaanka xaqiijinaya si aan u gaarno taalada daljirka daahsoon daawadayaal haddii ay ii suura gasho waxaan idin dul geyn doonaa taalada daljirka daahsoon si aad u aragtaan xaaladda rasmiga ah ee halkaas ka jirta dadka ayaan ku noqon doonaa si aan u ogaano waxyaabaha dadku ay ku sheekeysanayaan saakay oo aroor hore ah dagaalkii xalay kadib وتاير لكن أنا كحن ولي جيم تاير كحن ولي كم صور جسم ولي إن نيوترال هاي نادي أساسي أن بدونها كهاي ودين ده كشقيان وأساسه كله نيوترال وده حاد وإن بوليتيكال نعم عن لكرين تلفزيون الشبيلة أيضا نقل ساعتان داوديال ولي حالة الرسمية تالو دلجيرك داهسون أيان اسكو دينا إنا سوق بينو
indhaheennu waxay qabanayaan gaadiid badan oo kuwa dagaalka ah oo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay leeyihiin gaar ahaan kuwa sugidda qaarkood qaar kale ciidanka gorgor sida hore idin kugu sheegnay oo goobta iyagu la wareegay gacantana ku haya dad badan ayaa halkan ka soo lugeynaya waa mootadii ugu horeysay ee saaka aan arko oo runtii halkay aadi doonto aan la ogeyn inkastoo wadada labada dhinacba ay ka xiran tahay sidaan idin tusnay laakiin mootadan halkan ay dad ku dejisay waxayna u muuqataa in halkan ay ku kala wareegi doonto dadkuna halkan ay ku degayaan sida u jeedaan waxay wadaan hilib si ay suuqa u geeyaan laakiin xaalka oo saaka adag dartiis way la lugeynayaan sida idin muuqata dad badan ayaa halkan soo gaaray mar ka dambaysa dhammaantood dadkan waxay daneynayaan in maxaa la helaan xogaha rasmiga ah ee ku saabsan xaalku sida uu yahay waxaa xalay guryahooda ay ku jireen rasaasta kaliya maqlayeen laakiin saakay jawiga maadaama uu degan yahay waxay u soo baxeen inay ogaadaan xaalka siduu yahay goobta cidda gacanta ku haysa iyo sidoo kale waxyaabaha la filan kara saansaanta ay dadka tusaale ka sii qaadanayaan haddii aan nahay bahda Shabeelle mar kasta waxaan isku dayi doonaa runtii shacabka nagu xiran ee daneynaya xogaha inaan u soo gudbino xogaha saxda ah ee halkan ka jira inkastoo daawadayaal ay adag tahay inaan gudaha u galno goobta laakiin xaalka hadda uu degan yahay dad badan muuqaalo telefoonada ay duubanayaan si ay dadka kale u gaarsiiyaan xaaladda runtii juugu degan yahay saakay xaaladan runtii dadka reer Muqdisho ayay kuwa baristay waryaal kale oo badan ayaa goobtan ku sugan iyaguna si u gudbiyaan xogaha uguna tabiyaan daawadayaasha iyaguna ku xiran runtii xaalka saakay laamiga waa sidan runtii waxa adag in gudaha loo galo oo halkan la dhaafo oo halka ugu dambaysa ay qof u yimaado runtii ciidamada ayaa halkaas fadhiya oo ammaanka xaqiijinaya dadka hareeraha dhinacyada ka soo galaya ayay celinayaan si aysan halkan uga dhicin wax rabshadahana waxaa ku dadaalaya ciidamada gorgor oo gacanta ku haya amniga guud ee taalada Daljirka Daasoon iyo sidoo kale runtii laakiin dadka waxay isweydiinayaan halka ay ku dambeeyaan ciidankii musharaxiinta daacadu ahaa laakiin weli ma helin xog sax ah oo ku aadan halka ay joogaan ciidamada kale ee daacadu ah midowga musharaxiinta wada kasto oo taalada soo gashay marka aad marto runtii waxaad arkaysaa in xaalku uu adag yahay lana tago goobta waxay noqonaysaa inaad xog ka soo hesho mid aad u adag maadaama ciidanku ay diidayaan in qof halkaas uu gaaro halkan waxaa ka muuqanaya burburka runtii goob ganacsi oo dagaalkii ama rasaastii xal la isku adeegsaday ay saameeyeen runtii qaybtan kore ayaa burburtay dhulka markaad aragtan waxaad arkaysaa saameyntii dagaalka ka dhalatay runtii burburka
ayaan weli arkaynaa. Halkan waa meel kale oo albaabkeedu uu jabay. ريبون دير ما تساحب شباب الله يفوق جرا حالي محمد قش منو شيء كرتا بحر من الله هذا كرتا أجيك ما كشخي ساعة هاي قري سبن قصود عن باب كان سوي جد وبرسين جاي سيدا كلام سبش وبربطه وحاجد كيس ويسرون هذا ماشي وحقلسكم مرة داوديال سيدا وجدان حال هذا أيوة الجاي سامنتي دجالك حلي هي كنتي هالكن كموقتة ضد بدن أي سوق وجانا هي هالكن سوق جاري سحالة ذي وجانا وحابر برسن رنتي هالكن وهايد ميل وناكسل لكن انتوا تقولوا شنو اسكو دي دونا سامينكا انا ارغنو اسكو دي دونا سامينتي برتن oo bar kaalin shidaal iyadoo laftirkeedu waxa ka muuqanaya saameyntii runtii dagaalkii xalay oo saameyn weyn mid ka mid ah dadkii xalay halkan ku sugnaa ayaa Shabeelle la hadli doono rasaastii haraadigeeda ayay gacmaha ku hayaan gacanta dhafsan waa sayid xal isku soo weeraro sida idin muuqata سبن حتى من السكول ده حال واحد بلس كمرة يوم marka bartan waa bar kaalin shidaal laakiin waxaan noqon doonaa mid ka mid ah dadkiina la joogay oo iyaguna runtii halkan saameynta ayaa weli muuqata meel kasta oo halkan ku dhow waxaa gaaray saameyn runtii oo qaarkood waxaa ku yaala rasaasta sida darbiyada hadaati ah hore idin tusnay goobtan kale oo aan soo galnay oo iyaduna burbur lixaad leh uu ka muuqanayo ciidamada waxay xaqiijinayaan ammaanka hadda qof shacab isku dayay inuu wadada maro laakiin ciidanka ayaa ka diidaya inuu goobta tago dhikaar ayuu taaganaya ciidamada ayaana foojignaan dheeri ah galay sida ujeedaan waxaan isku dayi doonaa inaan soo dhaweyno qofkaas ayaa raba inuu gudaha u galo goobta uu moodo laakiin ciidamada ayaa u diidaya in goobta uu tago ama uu maro ama uu isticmaalo wadadan si loo xaqiijiyo ammaanka ayay dadaal ugu jiraan ciidamada gorgor oo runtii ciidamada ammaanka ayaa xaqiijinaya amniga guud ee halkaas waxaa ku sugan ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan gorgor oo xaqiijinaya amniga guud ee halkan gaadiid kale oo ciidamo ka tirsan ayaa hadda soo galaya sida idin muuqan doonta gaadiid hor leh oo ciidamada ayaa halkan ku sii qulqulaya gaadiid kale oo hor leh ayaa soo galaya goobta si loo xaqiijiyo amniga guud ee halkan
ciidamada booliiska ayaa hadda goobta dadka soo gaaray iyaguna si ay u kala eriyaan gaadiid badan ayaa hadda ku sii qulqulaya taalada daljirka daahsan xaaladdu waa sidan idin muuqata runtii ciidamo horle ayaa hadda soo gaaray iyaguna si ay qayb uga qaataan sugidda ammaanka daljirka daahsoon dagaalkii xalay kadib ayay dowladda federaalka Soomaaliya halkan waxay u soo daabulaysaa ciidamo badan si ay u yaraato saameynta ama dhibaatada ka dhalan karta haddii dagaal uu dhaco ciidamada booliiska ayaa diidaya goobta halda aan ku sugannahay saa u jeedaan waa sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska laakiin dadka wuxuu amrayaa ciidanka in halkan ay ka kaxeeyaan si amniga guud loo xaqiijiyo markasta laakiin daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa xogaha rasmiga ee ku saabsan halkan waxaad ku mahadsan tahay daawade muuqaalkan intii aad la socotay aniga waxaan ahaa Cabdinaasir Socdaal oo ka tirsan wardoonayaasha telefishinka Shabeelle aad ayaad u mahadsantihiin inta mar kale aan kulmi doono waxaan idin filaynaa sidaas iyo nabadgelyo aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal waan kaga mahadcelinayaa